بسم الله الرحمن الرحيم فيديوغان waxa inoo noqonaya fiidiyowgii shanaad qaybta shanaad waxaan rabnaa inaan u kala saarno laba fiidiyow qaybta shanaad fiidiyowgiisa koowaad iyo qaybta shanaad fiidiyowgiisa labaad waxaan ku kala baran doonaa qaabka loo xaadiriyo ardayda qaabka loo fiiriyo riboodka maalinlaha ah iyo qaabka loo fiiriyo riboodyada bilaha ah ardaydii maaragtay joogay ma garanaysaa waxa weeya in gooni arday loo raadiyo riboodkiisa iyo qaybo kala badan marka qaybta ugu horeysa waxay noo noqonaysaa qaabka loo xaadiriyo arday marka si aad u xaadirisay ardayda waxaad tagaysaa meeshan ay ku qoran tahay student attendance ama cafwan attendance ay ku qoran tahay markaad tagtay qaybtan attendance waxaad ka tegaysaa khaanada inay ku qoran tahay student attendance qaybahan ka hooseeya waa arki doonaa student attendance markaad tagtid waxa aad soo saaraysaa maaragtay galaaskii aad xaadirin lahayd marka waxaad dooranaysaa tusaale ahaan galaaska rabtid inaad xaadirisid waxaan u baahnaa galaaska form 2 inaan xaadiriyo form 2 baan leeyahay form 2 waxaan ka dooranayaa qaybta aan ka rabo form 2 a baan rabaa waxa igu xiga qaanada saddexaad igu xigta waa taariikhdii aad xaadirineysay haddii aad maanta joogtid oo kale maanta aad rabtid inaad xaadirisid isaga automatic kugu dooraya waad dhaafaysaa sergi waad dhaafaysaa haddii aad rabtid laakiin shalay oo kale arday aad soo xaadirisay oo maaragtay warqad ku qortay inaad rabtid inaad gelisid waxaad dooranaysaa taariikhda baad dib u maaragtay u bedelaysaa 19 bisha oo 18 ka dhigaysaa marka inagu ma rabno maanta waxaan rabnaa inaan xaadirino 19 inoogu daa kadib waxaan leeyahay sergi markaan dhaho wixii ii soo saarayaa ardaydii aan xaadirin lahaa ama galaaska ku jiray marka qaab fudud baan u sameynay xaadiriska ardada maaragtay automatic buu wuxuu uga wada dhigayaa inay joogaan simply ardayda waxa weeye row number ba ku xaadirinaysaa ama nambaradooda galaaskiisa u kala horeyn ba u kala xaadirinaysaa 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo qaybo kale marka saa ujeedid waxa weeye ardayda nambaradoodii iyo magacyadoodii waa kuwan automaticna wuxuu iga dhigay inay wada joogaan kaliya waxa weeye ardayga jooga automatic buu u dooran yahay waa daynaysa ardayga jooga kaliya ardayga maqan unbaad waxaad ka dhigaysaa absentee oo ah inuu maqan yahay ama waxa weeye hadduu ardayga soo daahay waxaad leedahay late uu soo daahay sababta ku soo daahay iyo sababta ku maqnaan haddaad rabtid notekan geeskan kugu yaala ayaa ku qoranaysaa sidoo kale waxaad samayn kartaa ardayda waxaad ka dhigi kartaa half day oo ah break inuu maqnaa breakna uu joogay marka waxaad leedahay haddii aad u baahan tahay break buu maqnaa break hore u maqnaa baa halka ku qoranaysaa oo qoraal ah si uu kuu xasuusiyo ama waxa weeye wuu joogay ardaygan marka ardayda waxa weeye automatic bay u dooran yihiin inay joogaan kaliya ardayda maqan iyo kuwa soo daahay unbaad calaamadda dooranaysaa daahitaanka iyo maqnaanshaha marka intaad samaysid waxaad leedahay safe haddii aad safe lahayd waxa weeye saasuu xaadiriskaasi kugu soo galay waxaa kale jirta iyaduna intaana safe garayn meeshan kore ay ku qoran tahay mark as holiday oo ah waxa weeye haddii ay maalintaas iskoolku uu fasax yahay oo kale waxa weeye waxaad dooranaysaa mark as holiday haddii ay tahay tusaale ahaan maalin fasaxa oo ardada la wada fasaxay ama maalin jimca haddii ay tahay halkan ayaad dooranaysaa mark as holiday waxa weeye hadhowdii markaad riboodka daabacanaysid wuu kuu sheegaya wuxuu kuleeyahay maalintaasi fasax bay ahayd systemkana waxa weeye ardadu maysan joogin marka haddii ay fasax yihiin jimcaha oo kale mark as holiday baa dhahaysaa haddii aan tijaabino oo kale mark as holiday dhahno wuxuu kuleeyahay ma hubtaa waxaan leeyahay haa markaan dhaho ardaydi dhan wuxuu iga saaraya xaadiriskoodii blog buu iga saarayaa sababtaa waa fasax ardadani haddii aan doorays dhaho ma dooran karo saa ujeedid marka haddii maalin fasax tahay safe baa leedahay saas ay kugu safe garaynaya haddaa ka celinaysin stigti unbaad ka qaadaysaa kadib anagu waxaan rabnaa hadda inaan ardayda saa u xaadirin ardaygaana maqan ardaygaana soo daahay safe baan dhahay saa ujeedid wuxuu kuleeyahay galaaskaas xaadiriskiisa waa lagu soo geliyey marka haddii aad rabtid galaas kale inaan haddana xaadirisid galaas kale unbaad dooranaysaa form 1 oo kale form 2 aan soo aragna form 1 baan rabaa inaan xaadiriyo form 1 a baa dhahaysaa taariikhdaad dooranaysaa maaragtay tusaale ahaan 20 bishaan rabaa inaan xaadiriyo sergi baan leeyahay saa ujeedid waxa weeye xaadiriskan wuxuu leeyahay berri waa jimci automatic buu u dooray soo maaragtid waxa weeye waa la xaadiriyey buu yidhi waana fasax sababtaa berri maalintaan doortay waa jimci marka saas ayuu igu soo geliyey marka haddii aan rabo inaan ka qaado jimcaha ardayda ay imaadeen oo kale waxaan leeyahay kan absentee uu maqnaa kan uu soo daahay kan uu soo daahay oo kale kadib safe baan dhahayaa laakiin maadaamay fasax tahay ay jimco tahay 20 bisha fasaxa weeyaan leenahay safe baan dhahaynaa
marka sidaas ayaad ardayda u xaadirinaysaa waa qaab aad u fudud galaaska dooranaysaa qeybtaa rabtid baad dooranaysaa taariikhda aad xaadirinaysa dooranaysaa kadibna sergi baa dhahaysa ardayda maqan baa ka reebaysaa safe baa dhahaysa aad bay u fududahay marka haddii aan intaa uga tago maaragtay qaabka loo xaadirinayo ardayda waxaan gelaynaa qeybta labaad oo ah qaabka ardayda loo fiirinayo riboodkooda arday la xaadiriyey baad rabtaa inaad riboodkooda fiirisid tusaale ahaan waxaa tahay student affairka ama shu-uunu dulaabka iskoolka ama qofka qaabilsan ardayda waxa weeye tusaale ahaan maalin laa u xaadirisaa maalintaa markaa xaadirisid waxaad rabtaa isla maalinta adoo jooga inaad ogaatid shalay ardaydii maqnaa iyo ardaydii joogay riboodkooda marka riboodka weyn ma tegaysid waa qeyb fudud oo halkaan kugu diyaarinay oo ah student ama cafwan attendance by date maalinle in loo fiiriyo marka galaaska markaad soo geshid aad xaadirisid xaadiriska dhamaysatid oo kale baa waxaad rabtaa inaad fiirisid ardaydii shalay maqneed waxaad tegaysaa marka khaanadan ka hooseysa oo ku qoran tahay attendance by date haddii aan ku dhufto attendance by date wuxuu iisoo saarayaa galaaskii aan rabay inaan fiiriyo galaaskan ku jirna haddeer oo kale waa form 1 a baan rabaa taariikhdii baan dooranaya maadaama 19 maanta tahay waxaan leeyahay 18 ii fiiro oo ah shalay ardaydii maqnaysa aan ogaado sergi baan leeyahay marka sergi markaan dhaho saa ujeedii ardaydii buu iisoo taxay ardaydii markuu iisoo taxo qaab wuxuu kuu tusayaa graaf oo qurux badan marka arday kasta wuxuu ku tusaya ardayda joogta wuxuu kaaga dhigayaa cagaar ardayda soo daahday wuxuu kaaga dhigayaa jaalle kuwa maqanna wuxuu kaaga dhigayaa guduud marka haddii aad u baahan tahay ardayda inaad ka dhex raadisid maqan simbali calaamadda guduudka unbaa fiirsanaysaa calaamaddan aad dul tegaysa waxaa leedahay ismaaciil xasan oo kale ha soo baxo oo kale banaanka usoo baxo sababta shalay buu maqnaa ardaygan kale haddii aad rabtid inaad fiirisid caasha oo kale iyadana way maqnay marka riboodkii saasa ku helaysaa haddii aad rabtid maalintii ka horeysa inaad fiirisid iyadana maalinta unbaad bedeleysaa 17 ka dhigaysa sergi baa leedahay 17 bishana waa arkaysaa waatan ardaygan yaasir maalintan halfday buu joogay break buu maqnaa break buu joogay waa arkaysaa sidoo kale ardaygan wuu maqnaa caasho iyaduna way maqneed maalintan labadan ardayna waa soo daaheen saa ujeedid labadan arday baa galaaska maalintaas imaaday oo maqnayn marka riboodkaasina waa ribood kooban oo maaragtay ardayga aad ku ogaanaysay si fudud aad u helaysay xogtiisii waxaan rajaynayaa inaad fahanteen labadan qaybood waxaan u gudbayaa qeybta saddexaad ee videoga oo ah leaves ama fasaxyada ardayda la siiyo qeybtan aad bay muhiim u tahay tusaale ahaan halkan markaad soo gashay qeybtan ardayda fasaxyada hore loo siiyey halkan liiskooda ayaad ka arkaysaa ama ardayda iyagu soo codsaday intay systemka galeen soo codsaday in la fasaxo halkan ayaad ka arkaysaa halkan ayaadna ka aqbalaysaa haddii aad rabtid inaad marka arday inta ku imaaday fasax dalbaday aad adigu manual usoo gelisid waxaad dooranaysaa halkan ay ku qoran tahay add baa dhahaysaa marka add haddaa dhahdid waxaad dooranaysaa galaaskii aad rabtay ardaygan ka tirsanaa form 1 oo kale form 1 a uu ka tirsan yahay baad leedahay ardaydii marka form 1 a ku jira dhan buu kuusoo taxayaa marka waxaan rabaa ardaygan ismaaciil la yihahdo inaan fasaxo dheydka uu kuusoo gudbiyey fasaxu tusaale ahaan waa 19 bisha oo maanta ah fasaxu marka waqtigu uga bilaabanaya baa halka ka dooranaysaa oo ah 20 bisha wuxuu waqtigu u dhamaanayay baad dooranaysaa oo 21 bisha 20 iyo 21 ayuu maqnaanayaa labada maalmood fasaxiisu noqonaya sababta halkan ayaad gelinaysaa haddii aad rabtid xanuun buu ku maqnaa bla iyo wixii lamid a haddii kalena waxba ku qori maysa sidaas ayaad uga tegaysaa haddii attachment ama warqad ay jirtaan halkan ayaad kasoo gelinaysaa kadib safe ayaa dhahaysaa marka ardaygaas sidaas ayuu kusoo gelayaa markaad soo gelisay ardayda fasax kaa codsaday banding bay ku jiraan saa ujeedi banding kan ardaygan hore waa la aqbalay marka haddii aad rabtid inaad aqbasho ardayga inaad fasaxdeed halkaa ay ku qoran tahay approval baa ku dhufanaysaa oo ah ardayga fasax marka haddaad ku dhufatid sidaas ayuu ardaygaas fasaxiisi ku qaadanayaa saas ayuuna systemka ugu soo galay marka ardayda la fasaxay oo dhan baa halkan ka ogaanaysaa iyaduna waa qeyb aada u fudud videogan qeybtan shanaad qeybteeda koowaad waxaan kusoo gabagabeynayaa intaas haddii ay jiraan waxyaabo aad fahmi weydeen waadna soo weydiin kartaan aad ba umahadsantiin